السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفكو نفس waxbarasho fasal dhex fadhina casharadiisana uu ku qaato gurigiisa waa isticmaalkiisu soo batay 10 sano u dambeeyay waxaana soo deglasay helitaanka xawaaraha 4G iyo qof walba hantiyo mobilka caqliga leh ama wax afka qaluga smartphone. hadaba muuqaalkana maanta waxaan kaga hadlaynaa habkan maadaama uu maanta caalamku ku jiro xaalad bandow ah. haddaad waxbarashada warato kaliya in fasal soo xaadiro macna ku soo istaago waa aaminaad khaldanayd oo maskaxdaada ku jirtay basaan rajaynaad wax ka bedesho kadib dhamaadka muuqaalkan. haddaynu isku dayno in wax taariifino ama aynu taariifka ku taariifino wax loo yaqaan autodidactism ama wax isbarida waxaynu oran karnaa in ardaygu wax barto isagoo fasal dhex joogin sidoo kale aanu macallin ama professor joogin. sidoo kale waxaynu ku taariifin karnaa waa awoodda ardaygu ku dooran karo wuxuu baranayo wali waqtigu baranayo. wax isbaridu habka ugu wanaagsan ee ardaygu u adeegsan karo kor u qaadista waayo-aragnimadiisa waxbarasho haato koorso wax ku barta ama qaar mawduucyo qaata iyagoo adeegsanaya wax isbarida ardaydu waxay awoodaan inay si qoto dheer u fahmaan waxay macallimiintoodu u dhigeen ama waxyaabo ka akhriyeen buugaagtaba. hadaba qof markuu fahmo habkan waxay ku riixaysaa in mawduucu si dhigo taasina waa war faraxti gelinaya cid walba. halka marka barna waxa muhiim ah inuu ka hadalno faa'iidooyinka ay leedahay wax isbaridu. marka soo gaatay ama soo taariifinay waxyaabaha waxa uu yahay nidaamkan ama wax isbaridu sidoo kale ogaatay xiriiradii ugu badnaa soo bilaabmay wax muhiim ah soo kan ogaato faa'iidooyinka ku jira wax isbarida. qodobka koowaad ama faa'iido koowaad waxay tahay ardaygu si wax ku ool ah ayuu wax u bartaa. inaad ka baaran degto hal mawduuc ayaa kugu riixaysa inaad si firfircoon ula falgasho mawduucaas. sidoo kale waxaad awood u yeelanaysaa inaad si qoto dheer uga fikirto waxaad baranayso. sidoo kale markaad baranayso waxaad ugu faraxsan tahay waxay farxadaas ku kaalmaysaa maskaxda inay muddo dheer ka hayso casharadaas. faa'iidada labaad ama qodobkaad wuxuu yahay ardaygu wuxuu wax badan ka ogaan doonaa waxa loo dhigo ee loogu dhigo iskuulada ama goobaha kale. sidoo kale isbaridu waa raadinta macluumaad badan oo ku saabsan mawduucan hadda ka horyaal. sidoo kale waa fursad aad wax badan oo dheeraad ka ogaan karto casharka maanta lagu soo siiyay adigoo ka duulaya. faa'iidada saddexaad aynu ku soo qaadan karno waxay tahay wax isbaridu waxay kor u qaadaan kalsoonida ardayga. maxaan ka wadaa tusaale haddii maanta macalinkiinu yiraahdo waxaan soo raadisaan sababta goobada loogu qaato 360 oo aad soo baadho oo bari lagu weydiiyo oo aad ka jawaabto bal muuqaalkaas waxaad barbar dhigtaa adiga oo soo baadhin oo garan waayay kadib macalinku wuri waana ka fadhiiso garan miiside dareen intee leeg ayaa u dhaxayn kara adiga ka jawaabi kara anigu ku deenaya. haddii aan si kale u dhigo tusaale haddii aad tahay arday aan hore wax fahmin yacni marka koowaad aan wax ku fahmin waxa aad u adag in macalinku 3 jeer ama 4 jeer cashan ku soo celiyo sabab jir awgood. sababahana waxay ugu weynaan kartaa in inta badan maadooyinkeena waqtiyada loo qabto ay ugu badan tahay maadada 50 minutes ama 45 minutes marka intuu macalinku qorayo intuu sharaxayo ina dhawaato laga yaabaa. saadaaldeed qodobkaas waxa caqabadaas hortaala macalinkii ma xaasilnimo kama ugu celin kar waayay laakiin qodobkaas hortaagan. hadaba xalkaada raadsan kara war hadda tahay qof aan aad wax u fahmin xalka waxaan filayaa inaad kala dhex baxday hadalkayga. qodobka afraad ma faa'iido afraad waxaan karnaa adigu go'aan soo halka ku dhiganayso waqtiga dhiganayso waxaad dhiganayso iyo waliba ujeedada u dhiganayso inta wada go'aamin kara markaad nidaamka soo raacdo. qodobka shanaad ama faa'iidada shanaad waxaan ku tilmaami karnaa wax isbaridu waxay kor u qaadaan xiisaha ardayga. waxaan ka wadaa inta badan ardaygu markuu baranayo waxaanu xiisayn ama maada aanu jeclayn ama koorso aanu rabin wuxuu isleeyahay war inaad ku baasto yacni in aad kaga gudubto un ka xifti maadada balse markuu ardaygu waxaan xiisaynayo waxa uu ku dadaalaa inuu maadadan fahmo oo xifdiyo. hadaba in qofku uu barto waxa uu jecel yahay waa horseedka waayo-aragnimo waxbarasho oo waxtar badan leh. hadaba marka intaa ka soo gudubno oo shanta qodob ee faa'iidada ku tilmaami karno waxaynu halkaas la dhiganaa sidoo kale waxyaabo looga baahan yahay inaynu haysano si aynu la jaan qaadno nidaamkan. qodobka wuxuu yahay helitaanka goob ku habboon waxbarasho oo degan. waxyaabo la dalbada waxa weeyaan qofku inuu helo goob suitable ku ah educationka ama waxbarashada. qodobka wuxuu yahay helitaanka muqbaahi. maxaan ka wadaa helitaanka wax lagu soo mariyo oo aad ka gaadho cilmiga halka yaal cilmiga internet dhex yaal wax ku gaarsiiya. maxaan ka wadaa inaad ama mobile haysta ama computer haysta. qodobka saddexaad wuxuu yahay helitaanka internet gaar ahaan internet xawaare fiican leh
waayo ardaygu haddii uu helo internet xawaaro fiican la ama haysan internet xawaaro leh waxa ku dhacaysaa board baan noqonaysaa hajisa waayo qofku markuu marba uu kaligiisiyo wixii search badan galo ardaygii inta searchingka uu caajisaya dadada waxa fiican inaad haysato internet xawaaro fiican leh qodobka afraad nagu baan wuxuu yahay helitaanka qalabka waxbarashada waayo nidaamkii kale ayuu la mid yahay laakiin waxyaabaha uu dheer yahay waa idin soo sheegay waxyaabaha uu kaga duwan yahayna insha Allah waan sheegi doonaa laakiin inaad haysato qalabka waxbarashada sida qalimaantii iyo buugaagtii iyo highlighterski waa muhiim qodobka shanaad waxa uu yahay in waalidku ka warhayo waxa uu ilmihiisa ka baranayo internetka waana qodob aad iyo aad muhiim ah waa qodob muhiim ah hadaba mawduucan la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.